بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لما وحن سلام أيام برشاد السومالي لام كدو يدبدبا عن تعالى إن وحكي لعضو لو شيء أنه عصب قواصة أمانك يقرأ حيرا إنه كسو قربي يخلاف حسبة الكلمية نبتكريد هو شيء قاليا ومدر غير السومالي وحأسو مرة الطريق دار waxayna umadahaan ku difaacayaan inagoo isku duwan waxaynu fiijigo u lahayn cadow meel uga yimaada waxaas ayaan daraa in kuwii amaanka u diray iyo kuwii damaca lahaa ee dalkan inay xukuumaad doonayeen la soo sheegayo waxyaabo amaanka ku lidda ah iyo inay isku dayaan inay qarankan kala geliyaan waxaan leeyahay qarankan aniga mas'uuliyadiisa koowaad saaran tahay umana dul qaadanayo mana aqbalaya cidna gorgorta kala geli maayo amaanka iyo xasiloonida dalka waxaan ku qaban doonaa gacan adag waxaa lala tigsan doonaa sharciga aniga iyo shacbiguna ma nihin kuwii shaani lagu boqodiri lahaa khilaafka kulmiye waxaa maalmahan soo baxaya khilaaf xisbiga kulmiye dhexdiisa ah waxaana ka xumahay inaan filay waqtigan waxaan u haystay in aan kala raabnay intii is haysay oo weliba guddi turxaan bixireed u saaray taasoo suurto gelisay in shirweynihii loo soo gabagabeeyo si qurux badan waxaana halkaa lagu doortay shir guddoonkii maamulayay shirka hoggaankii xisbiga iyada oo la isla qaatay in golay dhexe iyo fulintii lagu soo ururiyey shir guddoonka shirka waxaa lagu soo ururiyey waana soo saareen haddiiba uu soo baxo isfahmi waxaa in si hoose loo dhameeyo hoggaanka xisbiguna wada fadhiisto kaadirka xisbiga loo yeedho xildhibaanada loola tago haddii taasi dhammaan weydana xisbigu sharci buu leeyahay dalkuna sharci buu leeyahay buuq iyo qayladana looma baanay arrinta musharaxnimada madaxweynaha ee xisbiga kulmiye ma jirto ballan noo dhaxeeyey aniga iyo musabixi haba yaraatee waxaa jirtay oo golaha dhexe soo saaray in aan guddoomiyaha ku wareejiyo marka aan ku guulaysto tartanka doorashooyinka madaxweynaha waxaana ku wareejiyey bil gudaheed waxaa xisbigu ii doortay musharaxa madaxweynaha waana ku guulaystay sharciguna wuxuu isiiyey 2 jeer waana sharaxanahay diyaarna u ahay cid kasta oo ila tartanta waxaan jirtay dabeecadda nidaamka dimuqraadiga in la tartamo balse ma dhacdo xisbi xaakim guulaysta oo xisbigii lala tartama aniguse waxba kama qabo odayaasha guurtida waad ku mahadsan tihiin dadaalkii qiimo weyna waan u hayaa xaasha ma diidanin mana diidi karo waxaan ahay ninkii 8 cod kaga tegay duco qaado balse arrintan waxay u baahan tahay in xisbiga gudihiisa iyo sharcigiisa